waxaa shal la soo xiray tartanka tenniska oo ah mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee la ciyaaro waxaana ciyaarta kama dambaysta ee tartankan ciyaaray Cali Usmaan Cali iyo Caadil Saakir Cabdalla ciyaartoodu waxay mid xiiso badan waxaana tartankan ku guuleystay Cali Usmaan Cali markuu soo daaday tartanka waxaa ugu horan goobta ka hadlay gudoomiyaha tenniska dhammaan tababarayaasha guddiga garsoorka ciyaartooyda dhammaan garsoorayaasha iyo dhalinta yaro ciyaartooydii maanta tartanka u xireyno dhammaantiin waa salaamantihiin waxaa sharaf noo ah maanta inaanu dhalintii tababarka la socday muddo maanta tababarkii dhammaaday tartankii dhammaaday tartankaasoo bilaawday bishii afartii muddo socday muddo isbuuc ah waxaana ka soo baxay dhalinyaro aad xirfad u fiican leh waxaan rajaynaynaa inay mustaqbalka soo socdo inay heerka gaaraan dhan kale waxaa dareenkooda ka hadlay Cali iyo Caadil oo ahaa labada xidig oo aad ku ciyaarayay waa sidee dareenka galabta sidees u qaaday tartankani dareenkii ma la soo koobi karo waxay u dhiirigeliyay gabar raxmo gabartaan soo socotay u dhiirigeliyay waan gartay ma rajaynaysid inaad ku kuuleysanaysid tartanka markuu bilaabanay maya ku guuleystay kadib maxaad dareentay farxad maxaad rajaynaysaa sanadkaas ina qaranka Soomaaliya mataltaas maxaa kooga faa'iiday bilawga hore ciyaaraha marka ciyaari jirtay yaraantaada ilaa hadda wali aan yartahay maxaa ka bedelay ciyaaraha hore marka aad tartanka ku guuleystay wax badan iska bedelay macallin oo imaado oo dhiirigeliyo wax tusoo adana bax macallimiin badan ay dhiirigeli jirtay wallahi tirinka maanta ma soo koobi karo aad iyo aad oo faraxsanahay laakiin aad iyo aad ayaan faraxsanahay bal booska labaad ayaa tartankan ka gashay misdheeyay booskan labaad ayaad galaysaa sidees lagaaga adkaaday misdheeyay booska labaad ayaa ka leeysaa iyo baskood ayaa ka leeysaa misdheeyay sabab iyo ataad maxaa waaye safti koowaad ko ana qaatay aad tan isliiti laakiin waxaan rajaynayaa marka dambe inaa ka yeelto